maanta waa maalinteennii labaad ee tartanka inoo socon doona muddada aan ku soo bandhigi doono Dol Cilmi Fashion Academy challenge ardayda graduate garanaya maanta waxay sawiri doonaa arday kasta iyo group kastaba sketchkooga aba sawirkii ay todobadii collection ay sameeyeen sawiradooda sawiri doonaan iyo sidoo kale waxay soo bandhigi doonaa fabricii dharkii ay soo qaateen iyo designadu sida yihiin group loo wareysan doonaa discussion badan baa la gali doonaa idinko daawan doona sawiradooda sidoo kale iyo dharkoogaba James way هذا بلوغ وين المرسي أي حاجة نحن شارك عدم نقنع لاينس كقولات الموتشن سامعها هذا يدي سه حاجة تدرس جيمس كهافة نقنع حتى صبران أقولك شيء برام واحد ما يبلو لايت كم دي ما نقدر أمين ما كلا كسوق هذا كلا أختار ممكن شرامر ما يختار ولا ما نستعمله بلو لايت أختار كم شرك على هذا محاستة ماشي بلو لايت يو بلو لايت أورانج بلو لايت يا براون بلو لايت يا بلو نيفي يا بلو لايت يا وايت توب كاس مفيس توب حاجة أوكي ريد كاربت كيجا حكا دقينا بوردو ما كدقينا سجا عندنا حكا دقينا كم بلو لايت ما كدقينا كم حاجة ده بفلو تنبله بلو لايت ما كدقينا سو على ما هيجا حكا دقينا عسان مين كود بوردو ما كدقينا لكن هرنا حنقول سمينا دلال كراي بلو لايت كاسة اسكو ماتش كرايا أوكي حاجة توب كون حاجة سبحان الله حاجة وبحيدة وانكرتي وبحيدة هذا ما كل صار ما هي وحيدة أظن تو بحكوا جالونا أنت صافي ونقنيا وبحانته عصام ونقنيا صافي أيقونه ما هي وحكوا ترترنا بلو لايت عصام ما هو برجندي بوردو وبرجندي ما هو عصام كيف جت برجندي باستعمالها حلكيبة بلو لايت مركب بلو لايت وحان كان صافي لا أنت كعنتن وريكسن يين تطبوش لا فلو قرينا سوس لا سعنا يسنا حكى لك وحق ده يعني بس كم صح إحنا ما عندنا بلو لايت بكري كده شنطة حكى لنا بلو لايت يا ده بلو لايت بكري كده بلو نيفي جوا مين كنا كبها بلو لايت بكري كده حالي وحين كاشوال كوير كمان كريتيفيتي كده ستريت وير بالموديل كريتيفيتي كوير waxay yiraahdeen intoo dhan James baan ka dhiganahay sharax amal James wuu la isku dardaray mitaylis surprise noqon doona intaan aan ku sameeyno insha Allah jacket wuxuu noqonayaa black coloristan colorkiisu wuxuu noqonayaa cambe oo kaas بسم الله مقعي وسور محمد كيس نحن كمية هاي أرديدا دول فاشيون أكاديمي runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkaas soo gaaray collection-kayga wuxuu ku kooban yahay 7 shay mid waxa la reer carpet mid waxa weeye waa evening dress mid waa street wear mid waa office wear mid waa traditional mid waa creativity todobadayada collection waxaan u eegnay coloriska loo xiranayna maadaama samarkii lagu jiro sidoo kalena la gashanayo habeenimo marka colorkeegu waxa weeye mid kasta todobada shay dhamaantood waxay ka midaysan yihiin colorka barbalka taasoo ay mid kastaba aan ugu talagalnay inuu dhinacun kaga jiro coloris waan isku dhex daraynaa laakiin targetka ahi waa barbalka maadaama uu fiyoolay dharkeegu mid walba uu dhinac todobada collection kaga jiro waxaan ugu magac darnay barbal air baa la yiraahdaa caqabado waxaan kala kulannay sidii aan wax u doonaynay baanaan u helin fabrigiskii maryaha doorashadoodii maadaama wadanka aan laga helahayn maryo kasto aad rabto amba design-kaad maanta dooratad fashion-ka ugu tala gashay sidaad u rabto ay ku noqon waayaan inta caqabadiina ka hortimi waxay ahayd inaanu fabric maryihii aan dharkaygan ugu tala galnay inaan weynay magacayga Hudaal Cabdi waxaan ka tirsanay group 2 so collection-kayga waxaan color baan dooranay color samara oo main noo noqdo laakiin so color-kaas muxuu ahay color-kaan soo dooranay waxaan raadinay color kasta oo unique ku noqonaya ama ku soo baxaya color-ka markaan ku darno kan isticmaalnay blue light way and then
toddoba collection ma sameynaa toddobada collection ba mid kasta blue light ku jira laakiin color kale blue light ka loogu talagalay ama ku soo baxaya oo summer colorna noqon kara ayaan dooranay fabric waxa ka ugu daran ilaa makada warbaadinayna qaar baan raadinay alxamdulillah soo dhamaysanay laakiin walaa fabric waxa caqabad ugu horeysa naga hortimid anaga wixii maskaxdeeda ku jiran maskaxdeedu sawiratay ama wixii aan iska jaraynay ama wixii aan diyaarsanay iyo fabric aan ugu talagalnay isma yeelan motivation kaygu wuxuu ahaa maadaama caqabado badan nala kulmeen waxaan kolba tayada nasata ama tiraada bes halkaas aan ku joojiyay kuweega kala jiiday si aan jasuga maxay u hirgelinaa ama u rumayna riyadii aan lahayn caqabadihiina aan ka gudubnay si wada jiran oo nagu gudubnay alxamdulillah magacaygu waa Amin Ibrahim Saciid waxaan ka tirsanahay ardayda dhigata Doll Fashion Academy waxaan ahay fashion designer waxaan ka tirsanahay ardayda gelisa challenge-ga iyo tartankan groupkeyguna group 3 collection-kaygu wuxuu ka kooban yahay toddoba design ka kooban yahay toddoba design way kala duwan yihiin anaga hal mid buu ka midaysan yahay oo yiri ku nahay collection-kaygu waxa weeyaan flower weeye teamkaygu horto team hawlkara inta dhiirigelin ugu filan inaan wada shaqeynayno inaan isku kalsoonahay inaan creative-kayga iyo waxaan barano dhan ku kalsoonahay walaa horta caqabad weyn baan fabric selection-ka kala kulana fabric-geeyga aan rabnay iyo design-nada aan rabnay inaan halkan fabric mariyay ka weynay oo aanay kalaradii iyo fabric dalka yaalaan islahaynba halkan waxa yaala waxa weeye fabric-gii laga sameeyay design-ka ay xidhanayeen modeliska kani waxa weeyaan evening dress ama dresska loogu talagalay in habeenimo xaflad lagu tago waxaan ka tulaynaa marada jilicsan ee shabaga iyo marada adag waxaan u sameeynaa inta sare dhijisman uga dhiganaa waxa uu soo gashanaa qofku gacmaha bow tahay baan u sameeynaa xagga dambena jiidmaysa oo dheeraanaysa inta hoosana skirt weyn oo ballaaran baan uga sameeynaa iminkana waxa weeyaan fabrigii labaad design aad qurux badan bad gacanta ku haysa design-kan waa red carpet-kaygii waana ka lagu marar ran weeyay groupkiina horta keeba group-an baan nahay marka design-ka waxaan ka sameynay maradan shabaga iyo maradan adag ee green-ka ah marka halkan caleema laga gelinayaa xagga dambena way u jiitamaysaa maraduna way ku soo baxsaa mara istaagmaysaa marka red carpet-kaygii baan maradan aan soo xulanay kalarka waa mara habeenkii shining sameynaysa soo hadda arkayno soo jiidasho leh soo jiidashana leh marka saasaan iyada ugu dooranay inaanu ka dhigano red carpet-kayga haye design-kan fiyooleyga maxaad ku dooratay casual-kaygii waxaan ku dooranay iyadna soo jiidasho leh sidii hore samarna ay tahay xilliga samarkana aan dooranay waxaan isku daraynaa shabagan iyo silkigan tanna waxaan noqon doontaa intii dambe wareegisay wuxuu samaysmi doonaa design-kaygu design ballaaran adu waxaad haysataa asxaabtii hore kale waxaad kaga duwan tahay subaaciyad baa halka aniga subaaciyad weeyaan groupkeyguna waa group 1 soo subaaciyada waxa weeyaan inaan halkan maxaa la yiraahdaa qaybta kaga darayno maradii cad hadda ma hayno waan soo wadnaa faysa la yiraahdaa marada cadna faysa isku magac yihiin macallin marka halkan waxaan kaga daraynaa maxaa la yiraahdaa subaaciyada waxaan doonayaa xaggan inay qayb saa u dheero noqoto de jiitamaysa si aan usaga wadin midnahay maxaa la yiraahdaa hablaha kale design-ka maxaad ku doorateen subaaciyadana waxaan ku dooranay kalarkan waayo collection-kayga waxaan doonayay inuu hal midab ka wada yeesho soo silig meel walba ka soo galo markaas sababta tirsay baan u kaliftay inaan ka soo doorano waayahay markii hore dhan waxaan soo wada aragnay toobab subaaciyadii baan marana halkan waxaa yaala dhar aad iyo aad ii soo jiitay oo anigiibaaba kasii helaba intaan lala tegin runwayga dharkani saan arko waa jenis bal adoo faahfaahin naga siinaya jeemskan waan faqfaqnay street baa la dhahdaa waan faqfaqnay qaarna maxay heleen intaan faqfaqno qaarna isku geynana marka waana sawirkaas saas inna waa caadi inna waan faqfaqnay maxaad ku dooratay jeemska wuxuu qurux badan waayo design hore loo sameeyo maaha marka waanan saasaad ku dooratay waay inantii modelka ahaydna waad la haysaa soo warka keen alxamdulilah design-kan halkan ku soo bandhigayna horta groupkaygu waa group 1 magacayguna waa Suur Maxamed Xiis toddobadaydii collection buu kani ka mid yahay waliba kani waa special waa mid anagu aan fikirkayga maskaxdayda isku geynay ma xataa mid aan meel aan wax ka soo qaadnay oo marba yar isku keenay kan sidiisa ayaa toddobadayda habloodba maskaxda ka tuujiyeen ay ku sameeyeen marka maradan uu ka sameeyay waxaana la yiraahdaa creativity dress maradana waa binki horta habeenkii ka war waa binki iyo barbara isku darayno
halkana qaamaha yar baan sameynaa qaamaha halkan kumaanaa soo bandhigan waxaan ku talagalay in surprise habeenkan ku noqdo dadka masraxeeda waxaad doonaysaa inaad wixii secret ahaadaan waxayna secret noo ahaadaan markaas magaciisana waa creativity saas baan ugu talagalay binkiga iyo waxaan idigu ogaanaa binkiga iyo barbal baan idigu ogaanaysaa iyo qaamo yar oo kale insha Allah anidan horo aanan halkan aanan ku soo bandhigin habeenkaasna ka lagu arki doono insha Allah waxaan soo gaarnay group 2 waxay kaga duwan yihiin groupada kale oo aad iyo aad noo soo jiitay idinkuna run ahaanteed ka heli doontaan shaqadan maskaxdooda ayay ka sameeyeen way diideen inay sawiraan sida groupada kale ay ama u shaqadeeyeen fabrikan kale ee agteeda yaala hay soo dhaw bal adigoo noo sharaxaya bismillaah marka waan dhawahay magacayga Umar Waxad Rashiid group 2 waan ka socda inta design ka waxaan dadka kaga duwanahay anagu maskaxdan ka sameynaa qofka noo xidhna bodigiisa ayaan eegnaa sidii ku soo baxsan u sameynaa xitaa koofiyada design ka waxaan doonaynaa isku dardarno anada leefan ka dhigno way kan maxaad ka sameynaysan maadaama mariyo badan oo isku jira ay yihiin bal adoo noo sharaxaya okay creative baan ka dhigayaa midab design isku dardarnay ama toban ka dhignaa ay koofiyadeeda oo la mariyo la isku dardaro la jarjarayo way maxaa ku doorateen inaad shaqadiinaad gacanta ku soo warweyd hata anaga collectionkayga waa blue light marka koobaad marka labaadna waxaan dooranay design walba design meel ka soo jeedinay soo maaha design walba oo sawirnay laakiin mid doona design kana sawirno waan arki doontaa insha Allah way marka secretku muxuu yahay ma waxa diidaysan in shaqadiina dad ay leedin arko ma diideyno waayo 7 collection baan noo diray 6 waan sawirayna marka waxaan doonay inaan kan ana sawiran oo maskaxda keeno insha Allah wada arki doontaan yamaantiinba marka outfit-kan wuxuu kaga duwan yahay outfit-dada waxa weeye outfit secret aad baan ku soo dhaweynaa waan dhawahay Faadimo bal adigoo noo sharaxay shaqadaada waxa weeye red carpet weeye wuxuu ka kooban yahay labadan maxaan sheegaa labadan fabric buu ka kooban yahay waa casaan iyo blue light way labada fabric buu ka kooban yahay marka toob aad ugu talagashay toob way waxa halkan yaala outfit aad iyo aad u qurux badan soo jiidasho leh run ahaantii way isqaateen blue light-ka iyo cadaanka waan dhawey walaalo mahadsantay halkan waxaan ka sameynaynaa street wear-kii weeyaan waxaanu ka kooban yahay half jeans iyo shaarkiisii cadda sidoo kale waxaa loo sameynayaa negatiin iyo koofiyadiisii oo kuwana jeans baa laga sameynayaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa bal design-kaaga adigoo nala wadaagaya كان هو سبعيتني محل دهاي سين كان واكاس مرضي نوتاس واي سبعيته واحد كتوش عدان يس انت اصدح عدانه انت نو بلولايت واي محل كتورت ان كلر كور كان بلولايت ادي aad baan ku soo dhaweynayaa waxa si diyaarsatay waa xafiis shaad baan malaynaya suud ba waay suudka waxaad ka diyaarinaysaa blue light blue navy iyo blue light waay ayaan ka diyaarinay way maxaad ku dooratay inaad walban been kalan meekayga waxa weyn blue light marka blue navy baan dhex gelin oo ku soo baxaya way saasaan ku dooranay ku soo dhaweynaya wadlaasanta wanda waxaad diyaarsatay color aan hadal iyo hubin karayn الله يابا كلر كي واي اوكي ديزاين كيك واكن waxa weeyaan casual dress baa la yiraahdaa and then half waxa weeyaan half shushubla oo saaran blue light baan ka dhignaa maadaama color code-kaygu ahaa blue light and then waxaan sameynaa garan skirta oo dhajisa galarkana waxaan ka dhigaynaa garanka waxaan ka dhigaynaa brown baan ka dhigaynaa and then suunka waxaan ka dhigaynaa light brown kabaha iyo suunka waan isku ekaysiinaa light brown baan ka dhigaynaa insha Allah shandadana waxaan u ekaysiinaa garanka brown caadi aan ka dhigaynaa way daawadayaal waxaan soo gaarnay group 3 oo ah groupkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa iyagana bal design-kooda iyagoo inala wadaagi doona iyo faahfaahintooda shaqadani waa shaqada maradan laga tiri doono shaqadan waxaan evening dress-kii waxaan ugu talagalay inuu noqdo evening dress-kii wuxuu ka samaysan yahay top-kan oo maradan ka samaysan waxyadan oo isna waxaan ugu talagalay inuu ubaxyo koonayaashan ka yeesho halkaasna aan ugu talagalay inta yare qoortana lagaga sharaxayo waxyadan waxaan uga samayn doonaa maradan oo loo yaqaano chiffon waaye yellow ama huruud waxa way kala aad soo jiidasho badan ha wana kalarkii samarka way kalarada samarka sanadka dhaqaatay waaye bal adigoo nala wadaagaya design kanan marada ka sameeyna design ka arkaysaan maraduna waxa weeye marooyinka arkaysaan waan office wear-ki way dress-ki office-ka way wuxuu ka sameeyay code iyo halfway oo intaas marka waxa weeye inaan soo shaqo tagaysa marada xidhan ha inaan soo shaqo tagayso simple-keeda alaabteeda qurux badan hadana simple
isku dhamaystiran waxa weeye midabka cadaanka hay hidiyo dhaqanka oo hidiyo dhaqanka laga samayn doono aad iyo aad sawirku waa kaas waay intan waa inta hoos marada cad waay xagga dambe sarena waa subiiciyadii aad iyo maradan waxay noqonaysaa marada dusha ka soo laadlaada tana noqon doonto tan yar ay jilicsan waay tan jijiidkina waa taalkoos marka waxaad ugu tala gashay aroosad baa xidhanaysaa mise qof normal ah xidhan doona ayaa xidhan doonta habeenkeeda yes aad iyo aad waxa weeye dharkii sharka ahaa anu hadda reer burcaahay oon kalarkan arko markaasaa miiri ku dambaysa saa ku qaado waay nashqadan nashqada aad iyo aad u qurux badan maxaad ugu tala gashay toomiya halkan intan waa toobka waxaan ka dhigaynaa maradan halkan yani waxay noqonaysaa koofiyad tan baa ilaa waxay isku noqonaysaa koofiyadeedii halka koofiyadu soo maraysaa intan waxaan ku buuxinaynaa ubaxyadu kan buu noqonayaa marka ubaxyada gacanta lagu samaynayaa bacdeen waxaan ku dhex turaynaa maradan oo dhan ubax baa laga dhigi doonaa maradoo dhan ubax baan ka dhigayaa bacdeen waxaan ku samaynayaa maradan baan ku tolayaa waxay noqonaysaa mara soo jiitamaysa red carpet baa la yidhahdaa marka waay marka habeenkaasaa la arki doonaa insha allah la arkay isagoo sawirana sii arkay kan wuxuu noqonayaa street view waay street view wuxuu noqonayaa iminka kan waxaan doonayaa in ka dhigno half yani la yara qaamiyey waay aan yara jeexjeexina kan waa garanaysaan waa ladarka weeye waa mashamac hadba si baa loo isticmaalaa haatan iseen lahay waxna soo celiyaa ma jirto aadiya waa xirfadaada ayaad ku awood sheeganaysa maradan soo qabanaba muxuu baan ka samayn waay kana waxaan ka dhignaa jaakeetkii marka kana wuxuu noqon doonaa maradii hoose kana wuxuu noqonayaa haafkii hoose marka haafka qayb haafka ka midana kan buu gelayaa jaakeetkiisina waa marka waa wacdaruhu ka mid yahay wacdaruhu ka mid yahay aad iyo aad baa kusoo dhaweynayaan dharka waa jeans waay وجينز هو ديرك كان لوغلا كان جيرين فابريكان مeel laga soo jirjirayso ma adarka jirin kan waa surwaalo jeenisa weeyaan wada aragtaa kaleeradooda kala duwan waa yar cadaatay bahalkii waxana surwaala si waaraad looga dhigo ma wala wada jeexjeexaya shaqadaada balans marada quruxda badan bay noqon doontaa kabaheeda ila ma aragtid yes waxa uga awood sheegasho weeyaan gurbada kale macal kabii baad sameynaysaa adinku kabii baan sameynaa tida kale gurbada kale aan waxaan u haynaa habeenka surprise ana si sheegaynin kana waa surprise kabtan iyo bahashane aad iyo aad surprise wax ma nooga sheegi kartaa may seegad kaga dhigaysaa seegad kaga dhigaya idinkoo dhan inaad markaa wow tiraa ma la rabo aad iyo aad dawaka xitaa inantani surprise bay ka soo boodee mala weena sheegayn yada laftarkeeda ma surprise baan waa surprise baan haynaa waxa ka soo dhacay yellow miya soo dhacay san yellow waa casualki waxaan ka dhigaynaa kani half ku noo noqonaya half ku cadaan marka halkan buu gelaya maradani waa mara soo dhacay soo half la socota kana waxaan ka dhigaynaa shaarkeegi marka wuxuu noqonayaa casualki oo isna sawirkaas si arka wax ka qurxoon ma kala soo bixin insha Allah tahay imka bad sabaraysi ka dhigtay imka ku dhaafay ma dhigi tiray ee ugu soo noqotay rabi aad maadsant adiga mudan anigoo ah aasaasaha Dhowl Cilmi Fashion Academy waxaan qaban doonaa challenge ay ku tartami doonaan 8 group kuwaas ay ku tartami doonaan creativity-googa iyo wixii 8 bilood muddada la dhigto iskuulka ay tahay 8 bilood waxa ay dhigteen iyo creativity-googa iyo sida u fahmeen fashion designing waxay ka fahmeen taas ay ku cadeey doonaan stage-ka iyo runway-ga iyo barnaamijka soo socda oo dhameystiran anigoo ah Dhowl Cilmi sababtii ugu kaliftay inaan furto iskuulka aba aan noqdo fashion designer waxay ahayd waxaan xoog u jecelahay xaragada qurxinta dan waxay ugu kaliftay marka dambe inaan barto fashion designer aan arkay inuu yahay weygayga saxda ah anigoo oo soo dhigtay jaamacado kale oo aan ahayn fokalkan imika aan hayo shaqadiisa oo caafimaad ahaa haddana waxaan naga soo leexday raqabadayda aba jacaylkayga aan u qabo fashion designing markii dambe marka anigu kaliya isku koobay oo skillkii anigu bartay waxaan markii dambe la iga codsaday aba bulshadayga yimid inaan u gudbiyo waxaan anigu aan jecelahay ayagana la wadaago taas ayaa igu kaliftay inaan sameeyo akademiyadan Dhowl Cilmi Fashion Academy waxay qorshaysan future-ka Somaliland fashion inaan sameeyo academy aba ka weyn oo heer jaamacadeed ah oo lagu qaadan doono shahaado tan ka sareyso akademiyada aan dhaafi doono taas oo ku soo kordhinaysa bulshada iyo hablaha oo si gaar ah anu si motivation siiyo oo taageero inay noqdaan qaar ayagu sidooda isugu tiirsan oo ka madax bannaan akademiyooyinka kale ee aba jaamacadaha lagu dhigto waxyaalaha sida tooska waxbarashada tooska tan oo noqon doonta waxbarasho dadban haddana noqonaysa waxay ku shaqaystaan muddo dheer
oo u baahan yahay wadanka hadday noqoto fabric hadday noqoto fashionka in waxa laga fahansan yahay ay noqoto in la helo dad skillera oo dresseska diyaarin kara sida dumarka imika arooska oo kale baahi weyn baa loo qabaa inay gabadha hesho dhar aroos oo saxa oo qof jidhkiisa marka qof markuu helo dhar jidhkiisa isaga lagu sameeyay iyo markuu soo iibsado dukaanka ku soo iibsado waa laba kala duwan marka waxaan u diyaarinayaa dadkan soo saari doona iyo aniguba isku diyaarinayna inaan noqono shirkad soo saarta dharka laga xiran doono Soomaaliland mustaqbalka insha Allah waxaan u rajaynayaa ardayda qalan jaminaysa saddexda gruuba guul iyo wax badan oo iska bedeli doona in la barto skillka fashion designing ka bulshada arki doonto in fashion designing ka duwan yahay inay yihiin dawarlayaal bulshada in badan ka aaminsan inay yihiin fashion designer ku dawarlay iyo fashion designer waa kala nooc marka waxaan u rajaynayaa mustaqbal ifaya iyo inay mid qof kasta oo kamid ah groupiska inuu gaarkiisa u soo baxo uu baraankiisa gaar ka yeesho